wafdi ballaaran oo hogaaminayo musharax xildhibaan Salax maxmed Diiriye oo Usharaxan golaha Barlamanka ee gobolka Sanag ayaa saaka gelinkii hore lagu soo dhaweeyay degmada Ceelafweyn. Wafdigan xildhibaanka Usharaxan golaha wakiilada ee gobolka Sanag kana sharaxan xisbigaasi kulmiye uu horkacayay ayaa socdaalkiisa waxa ku helinayay xildhibaano ku sharaxan golaha deegaanka ee degmada Ceelafweyn oo iyaguna ka sharaxan xisbigaasi kulmiye. waxana wafdigani xildhibaanka lagu hortagay meel ka baxsan degmada Ceelafweyn waxana halkaas ku soo dhaweeyay uqaal xildhibaano mas'uuliyiin iyo waliba dadweyne kala aad u tiro badan waxana wafdiga loo soo galbiyay xildhibaanka uu horkacayay gudaha degmada Ceelafweyn iyagoo lagu soo wareejiyay sharciyada waaweyn ee ku yaala degmada Ceelafweyn. ugu dambeynna waxa wafdiga la geeyay aqalka martida degmada Ceelafweyn halkaasi oo uu kala hadlay dadweynihii halkaasi ku soo dhaweeyay isagoo uga mahad celiyay soo dhaweynta ballaaran ee uu sameeyeen taageerayaashani. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay uqaal waxgarad xildhibaano ka tirsanaa golaha deegaanka ee degmada Ceelafweyn, musharaxiin u sharaxan golaha deegaanka iyo mas'uuliyiin kale kuwaasoo dhammaantood baa la uga bariyay xildhibaan Salax maxmed Diiriye iyo waliba xubnahani kale uu horkacayay in alle uu ku guuleeyo xilka ay u sharaxan yihiin. musharaxiinta xisbiga kulmiye ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada oo Ceelafweyn iyo maamulka degmada Ceelafweyn waxay idinku soo dhaweynayaan gacmo furan. waxa inta kale oran doona inta iga dambaysa halka waxaanu isugu nimay xafladda soo dhaweynta musharaxiinta xisbiga kulmiye uga tartamaya ee golaha deegaanka iyo golaha wakiilada. waxaanu leenahay xildhibaanada ku soo dhawaada degmadiinni, ku soo dhawaada dadkiinni, ku soo dhawaada ehelkiinni. aad baanu idin taageersanahay, aad baanu idin soo dhaweynaynaa inaan soo dhaweyno musharaxiinta golaha wakiilada iyo golaha deegaanka ee degmada Ceelafweyn. waliba runtii ilaa saaka waxaan u soo jeednay iyadoo ay rabadaan tahay xildhibaankan aad u qiimeynayno Salax maxmed Diiriye xujaale waanu saaka halkan isugu nimid. insha Allah waxaan ku rajaynaynaa guul weyn hadaan nahay reer Ceelafweyn beelweynta Ceelafweyn waxaanu ku soo dhaweynay gamca furan baan ku soo dhaweynay xildhibaanka habarwadaaga aanu nahay Salax maxmed Diiriye iyo xildhibaanada kale ee deegaankaba boqolkiiba boqol baanu soo dhaweynaynaa. waxaan ku soo dhaweynaa gacmo furan waana ruugacda gobolka wax ka tari doona insha Allah hadii alla yiri. waxaanu leenahay waan masiibo ku soo dhawaada degmadiinni, ku soo dhawaada deegaankiinni, ku soo dhawaada waanu idin sugaynay. waxaanu idin ku sugaynay waan warkiina hore aanu haynay degmadiinni baa timaadeen aad iyo aad baanu idin ku soo dhaweynaynaa guulla waa idin rajaynaynaa. assalaamu calaykum. xisbiga kulmiye waxa lagu yaqaanaa waad aragtaan waa rabadaan baynu ku jirnaa xilligeenu ku jirnaa waa rabadaan. xisbiga kulmiye waxa lagu yaqaanaa dadaal baa lagu yaqaanaa firfircooni baa lagu yaqaanaa isku duubni baa lagu yaqaanaa. ishina ayaa idin warxaatiya maanta oo rabadaana ayaa intaas oo qof oo kulmiye ahi maanta halka fadhida marka wax ilaahay loogu mahadnaqo weeye. aad iyo aad baan idin soo dhaweynayaa. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. ilaahay baa mahad iska leh. waxaan maanta halkan ku soo dhaweynaynaa xildhibaan ama musharax Salax maxmed Diiriye iyo xildhibaanada golaha deegaanka ee la socda. waxaanu leenahay ku soo dhawaada degmadiinni, gobolkiinni iyo dadkiinni oo idinku soo dhaweynaya gacmo furan iyo caleemo qoyan. waxaanu leenahay Salax inaynu u codayno oo farteena ugu caawino. wuxuu uga yimi meel fog marka farteena inaynu ku caawin doonaa insha Allah. xildhibaanada golaha deegaanka waxay doonayeen inay naga bedelaan waa kuwii bedelayay iyana magaalada dhiig cusub aynu ku shubaynaa soo maaha. guul weeye guul. wassalaamu calaykum. geestooda waxayna halkaasi ka hadlay xubno ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Ceelafweyn u sharaxan ee xisbigaasi kulmiye iyo waliba musharax xildhibaan Salax maxmed Diiriye oo u sharaxan golaha Barlamanka ee gobolka Sanag. wixii nin lagu amaanoba waa nin koobsaday insha Allah taala. waa nin haddii aynu soo saarno oo farteena siino inagu matali doona gobol ahaan iyo degmo ahaanba insha Allah taala aynu rajaynayno inuu isbedel degdega haddii Ilaahay subxaanahu wa taala uu soo saaro uu ku guuleysto uu ka soo saari doono degmada iyo gobolka way nooga soo saari doono insha Allah. nahay golaha deegaanka ee degmada Ceelafweyn kulli xisbiga waxaanu ka sharaxanahay kulmiye xisbil haakimka 9 xubnood baan degmada kaga sharaxanahay. waxaanu insha Allah taala aanu leenahay 9 xubnood ee ka sharaxan xisbiga kulmiye ina fartiina nasiisaan
oo aanu insha allahu tacaala degmadan ay ku dhacday dib u dhaca iyo aafada iyo dagaaladu ay habsaamiyeen intii insha allahu tacaala ka gooday aanu insha allah hor ugu marin doono xildhibaan saalax maxmed diiriye oo ka tirsan golaha wakiilada ama golaha sharci dejinta hadalka oo aan soo koobayo musharaxnimadan waxay ka timi inaanu helo degmo midaysan shacab isku duuban si aan u helo degmo nabada nadiifa qaabaysan bilicsan taas waxay ka turjuntay inaan sharaxno oo aad nusisano codkiina si aan degmadeenna iyo deegaankeenaba aan uga dhigno oo la tartanto degmooyinka la dhigaa oo aayaadka quraanka ilaahay subxaanahu wa ta'aala soo dejiyay ay kamid tahay wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha ni'amka ilaahay idin siiyay haddii aad tirisaan ma koobi karaysaan ni'amkaan hadda wax ka taabanayo waxa kamida roobka ilaahayna siiyay inoo da'ay welina cusub abaartii inaga soo jibiyay ni'amka ilaahay aan hadda xusay waxa kamida amniga iyo nabadgelyada gaar ahaan waliba Ceelafweyn ka hana qaaday inagoo muddo ku soo jiray arin colaadeed arintaas oo arin foolxun ahayd aynu u xusayno oo u xusuusanayno inaan loo noqon insha Allah taala arrimaha aan isku dayno ee idinku matelayno ee niyadda nagaga jira mar haddaan ballan qaaday inaan soo koobayo intaa kooban baan ku soo dhaweynayaa nabadda aan ka soo hadlay waxaan ku hambaliyeynayaa oo waajibkeedii gutay dowladda uu hogaamiyo dowladda Soomaaliland ee uu hogaamiyo mudane madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo in badan ku dadaalay inuu deegaanka islaaxiyo nabad ka dhaliyo u soo diray wasiiro waqti dheer fadhiyay u soo diray culimo madax dhaqameed cid kastoo acyaana cid kastoo hormood ka ah Soomaaliland cid kastoo wax laga maqli karo ay waqti dheer u horeen qayaidinka la soo dhaweeyay noo fadhiya iyadoo waqti duhura uu soo dhow yahay cibaadadana aanu idin farayno ee aanan idinka habsaaminaynin aad iyo aad baa mahadsantihiin si duhurka loo gutana waa soo koobaynaa axmed maxamed cilmi bulsha TV Ceelafweyn